siyaasiyiinta mucaaradka ah ee fadhigoodu yahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa laba arrimood oo muhiim ah kaga guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud Culusow madaxweynaha sharci darrada ku fadhiya Villa Soomaaliya waxaana beesha caalamku ay qaaday tallaabo u muuqata dhabarjabin siyaasadeed oo si toos ah loogu beegsaday Villa Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Maxamuud ba dhinacyada mucaaradka ah ee magaalada Muqdisho fadhigoodu yahay ayaa xayndaabka xalane waxay kulan muhiim ah oo miradhala kula yeesheen xubno ka tirsan safiirada beesha caalamka si gaar ah dawladaha saameynta ku leh gudaha siyaasadda Soomaaliya xubnahan waxay si toos ah beesha caalamka uga dhageysanayeen go'aanka rasmiga ah ee qaramada midoobay iyo safiiradii ugu dambeeyay ee wada hadalka la soo yeeshay Xasan Sheekh Maxamuud Culusow madaxweynaha sharci darrada ku fadhiya Villa Soomaaliya oo wada tillaabooyin u muuqda inay yihiin nafbixi ugu dambeeyay ee siyaasadda mucaaradku waxay si toos ah u hordhigeen xubnaha beesha caalamka in lama huraan ay tahay in la qaado laba tallaabo oo degdeg ah waxay si toos ah u sheegeen in la joogo xilli kala guura isla markaana ay tahay in laga wada hadlo nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa iyo xilliga ay dhacayso si loo gaaro heshiis rasmi ah arrinta kalena waxay ku sheegeen in lama huraan ay tahay in la qaado tallaabo adag oo ka dhana Xasan Sheekh Maxamuud Culusow oo si sharci darro ah isugu dhajinaya Villa Soomaaliya mucaaradkuna waxay ku doodeen in laga rabo qaramada midoobay iyo safiirada saameynta leh inay qaadaan tillaabooyin adag oo lagu xakameynayo Xasan Sheekh isla markaana awoodiisa hoos loogu dhigayo iyaguna dhankooda waxay sheegeen inay sii wadayaan isballaarinta dhanka awoodda ee ay wadaan iyo mudaharaadyada shacabka ay ku hogaaminayaan xubnaha beesha caalamka ayaa si toos ah waxay miiska u soo saareen in wada hadal dhab ah oo dhabka hadal ah oo runta indhaha la iska saarayo ay la yeesheen Xasan Sheekh Maxamuud xubnaha beesha caalamku waxay banaanka soo dhigeen war la filayay waxaana haweeneyda matalaysa midowga Yurub ay si rasmi ah miiska u soo saartay in Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisaba ay ka dhaadhicisay indhahana runta ka saartay oo la wadaagtay in waqtigooda uu dhamaaday wax aan doorasho ahayn oo laga sugayana aysan jirin xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale isku raacay in Xasan Sheekh Maxamuud ay hortiisa ka sheegeen in xilli kala guura la galay lama huraanna ay tahay in laga heshiiyo nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa iyo waqtiga ay dhacayso dhinaca mucaaradka waxay ku ugu baaqeen in iyagu mar kale ay Xasan Sheekh ku laabanayaan isla markaana ay ogoleysiinayaan wada hadal iyo in doorasho laga heshiiyo taasna aysan diidin mucaaradku oo miiska soo fariista beesha caalamka ayaa shaki qabtay maadaama mucaaradku markii hore ay ka diideen in Xasan Sheekh ay la fariistaan kuna tilmaameen fadhiyadiisa kuwa waqti dhumisa balse hadda mucaaradku arrintaas waa ay kaga guuleystay Xasan Sheekh oo waxay ku qasbeen in caalamku culays ku saaro inuu aqbalo muddadiisii inay dhamaatay oo doorashada uu kala heshiiyay dhinacyada ka soo horjeeda sidoo kale mucaaradka ayaa markii ay shirka ka soo bixeen kadib waxay ku dhawaaqeen in dib ay u bilaabanayaan banaanbaxyadan ayaana waxay dhici doonaan ciidda kadib taasoo muujinaysa in laba arrimoodba ay kaga guuleysteen Xasan Sheekh oo sharci darro ku fadhiya Villa Soomaaliya waa marka koobaad waxay ka horkeeneen beeshii caalamka runta ayaa indhaha laga saaray waxaa loo sheegay in waqtigiisii uu gabagaba yahay dalkana uusan burburin karin ugu dambeynna waxa uu ku qasbanaaday in caalamka uu ka yeelo mar kale in xalana uu ku laabto si loogala hadlo arrimaha doorashooyinka mucaaradkuna waxay wadayaan in shacabka ay ka horkeeneen markii ay beesha caalamka ku guuleysteen oo la bilaabo banaanbaxyo culculus oo Xasan Sheekh iyo kooxdiisa loogu muujinayo in aan laga rabin dalka taasoo ka dhigaysa in waayihiisii siyaasaddu ay hadda gabagaba yihiin isla markaana rafashadii ugu dambeysay uu ku jiro